munaasabada xuska 18 May ee maalinta qaranimada Soomaaliland ee sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegatay markii dibadda loo taagay isla markaana la aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta laga xusay guud ahaanba deegaanka degmada Ceelaf Weyn. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan ballaamaha dawladda ee kala duwan, ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada Ceelaf Weyn iyo dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Ceelaf Weyn ayaa maanta isugu soo baxay garoonka weyn ee Ceelaf Weyn Stadium iyagoo dadweynaha soo bandhigay shucuurtooda iyo dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin isla markaana ay ugu dabaaldegayaan 18 May ee maalinta qaranimada Soomaaliland. ugu horeyn waxa munaasabadan xuska 18 May ka hadlay Caaqil Cabdiraxmaan Xuseen Jaamac, Chief Caaqil Maxamuud Nuux Maxamed, Caaqil Aadan Jaamac Faarax, Abwaan Cabdi Saciid Axmed iyo Abwaan Aadan Digaala Jaamac, taliyaha saldhigga ciidanka militariga gobolka Sanaag, taliyaha saldhigga booliska degmada Ceelaf Weyn iyo taliyaha ciidanka asluubta degmada Ceelaf Weyn waxna hadaladoodii kamid ah. wadan sharafta leh ee go'aansiyada 18 May ayaanu maanta uga dabaaldegaynaa gobolada Soomaaliland caalamka u sheegaynaa oo dawladda dariska u sheegaynaa oo dawladda Soomaaliya ee federaalka ee Soomaali koonfureed u sheegaynaa inay Soomaaliland go'aansiyada iyo madax banaanideedu tahay muqaddas. munaasabadan sida fiican aynu ugu soo baxnay ee aynu maanta ugu wada dabaaldegayno ilaahay tanteeda nabad haynagu gaarsiiyo. maanta waxaanu hambalyeynaa oo munaasabadan ay tahay oo aanu u nimi inaanu taageero maanta waa maalintii 18 May ee aynu isugu nimi qarannimada Soomaaliland. maanta waa maanta waa maalintii aan muuqanaan meel istaagnayaan madax yeelanee mashaale munaasabadan inoo mudanida oo macaanida adiga lagu dhaatay markaan talatay baan ku warmalay dawladu jiray dhibtaanka ilaahay deemiyo galeedi duseen ma waydaatiyo jamadiyo geesta kale waxaanu wax ka weydiinay qaar kamid ah shacabweynaha ku nool magaalada Ceelaf Weyn dareenkooda iyo shucuurtooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin isla markaana ay ugu dabaaldegayaan 18 May ee maalinta qaranimada Soomaaliland waxna hadaladoodii kamid ah. xasanahay 18 May shan laatan guuradii ka soo wareegtay maangoonistaagii Soomaaliland maalintan xornimada ka qaadanay Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaaliland jiro joog Soomaaliland ha noolaato. 18 May soo afmeeray isla markaana soo gubagubay maayarka magaalada Ceelaf Weyn Cabdiraxiin Yuusuf Axmed waxna hadaladiisii kamid ah. waynu ku adkaysanayna go'aansiyada shacabka reer Soomaaliland sidaas u kamidaysan yahay. Axmed Mursal Askar TV Universal Ceelaf Weyn.